reer bani israa'iil way bateen oo aad ayay u bateen wax faa'iido ahna ma noo hayaan shaqada u dira tiradii shaqaalaha way bateen tiradoodii aad ayay u bateen reer bani israa'iil maxaan ka samaynaa boqorkaygiyow waqti ku filan ma shaqeeyaan waxay shaqeeyaan subaxii ilaa galabtii waqtiga ay shaqeeyaan u kordhiya mid kasta oo shaqayn karay shaqo ayaan u dirnay carruurta iyo dumarkana waxay ka shaqeeyaan meelo kale ilaa iyo goormaan dhibaatadan ku jiraynaa waad ogtahay inuu ka soo dhaabixi doono reer bani israa'iil wiil asaga gacantiisa uu fircoon ku halaagsami doono laakiin xalaal calayg duqa faaliyayaashana waxay leeyihiin wakhtiguu wiilka soo bixi lahaa waa soo dhowdahay waraada waardiyaha nugu soo dhow yihiin iisoo urusha dadka wax sheega oo dhan kuwa wax faaliya kuwa riyooyinka fasira kulligood saaxiriintana ku soo dara soo urursha dadka wax sheega oo dhan kuwa wax faaliya kuwa riyooyinka fasira saaxiriintana ku soo dara haddaba dabkii aan riyada ku arkay ma wuxuu ahaa baad leedihiin wiil haa wiil reer bani israa'iila boqorkaygiyow oo halaageenna oo dhan ma isagaa sabab u noqonaya iyaga way ka badbaadayaan sida ay leeyihiin qofna igama badbaadin karo iyaga haa haddaba dila wiil kasta oo dhasha oo reer bani israa'iila waa yahay boqorow nasiida wiilka markii in muddo ah wiil kasta oo dhasha oo reer bani israa'iila la gowracayay ayaa waxaa la waayay cid shaqaysa sababtoo ah wiilasha dhashana waa la gowracayay odayadii reer bani israa'iilna way sii duqoobayeen markaas ayay fircoon qoomkiisii fircoon u yimaadeen waxayna u sheegeen inaan cid shaqaysan lahaynin sababtoo ah wiilasha dhasha ee reer bani israa'iilna waa la gowracayaa odayadiina way sii duqoobayaan markaas ayuu fircoon wuxuu soo saaray amar in wiilasha dhasha sanad la daayo sanadka xigana la gowraco bani israa'iil odayaashu way ka duqoobeen oo ka dhimanayaan wiilashina waa ka gowracaysaa ayaa noo shaqaynaya aad bay u yaraadeen oo wax shaqayn kara ma jiraan wax shaqayn karaa ma jiraan shaqaday samey jireen dhan hadda waxaa la rabaa inaan anaga samayno odayaashii xitaa waxaan ku khasabnay inay shaqeeyaan wax shaqayn kara waxaa ka haray wax yar wiilasha sanad dhasha daaya sanadka xigana gowraca oo sanad dhaaf u wada boqorkaygiyow maxaad caqli iyo xikmad badan tahay sidaa haddii la sameeyo ma yaraanayaan aadna uma badanayaan sidoo kale nebiyullaahi haaruun calayhi assalaam waxa uu dhashay sanadkii saamaxaadda reerku aad ayay ugu farxeen laakiin hooyadii isla sanadkii ayay uuraysatay taas oo macnaheedu yahay in ilmaha ay dhasha haddii wiil uu noqdo uu ku beegmaya sanadka gowracaadda oo ay noqonayso in la gowraco
iska warrama soo dhawow kani waa Haaruune waa wiil yaroo wanaagsan bal halkan fariiso walaalay gabadhaydii aamus wixii dhacay waad u jeeday wiilka yar nooda oo qalbigaaga naxariis nooga raadi Haaruun hooyadii haddii runta aan kuu sheego maxay waxaan u soo baxay in aan nimanka wax gowraca u sheego wiilkaaga laakiin wiilkaagan qalbigayga waxa u gashay naxariis aan weligay ilma kale u gelin waxba sheegi maayo ee wiilkaaga ilaasho ilaahay ayaa mahad iska leh ilaahayow adiga mahad iska leh alla maxaad weynaatay gabadh yahay maxaad ugu daweyn weyseen baraska gabadhayda boqorkeeniyow anaga ma hayno wax aan ku daaweyno laakiin waa isku dayeynaa wixii tabarteena ah mar labaad ma qiraysaan awood la'aantiina boqorkeeniyow na saamax oo noo dambi dhaaf macbadkii waad dhisi weydeen sow maaha haa maxay tahay sababtu boqorkeeniyow macbadka wuxuu u baahan yahay maal badan oo aanan haysanin soo aruusha haddii aadan haysan reer bani israa'iil waxba ma bixiyaan sababtoo ah waxay ka sheegtaan faqri ciqaaba qoraxda markay dhacdo ayaan ku bilaabaynaa inaan ururino oo aan qasab uga qaadno waxaan qasab uga qaadaynaa waxa ay hayaan oo dhan waxaan haynaa masado waxaan haynaa bariis waxaan haynaa basal baasto waxaan haynaa hilib iyo caano kale oo iibsado cunto aad iyo aad u wanaagsan suuqa maanta aad buu shidan yahay ku soo dhawaada walaalayaal maxaan kaa iibiyaa abay waxaan raadinaa sanduuq oo alwaax sanduuq intee la eg koo yariis ah oo intaas la eg noocaan oo kale ma rabtaa barabiyo kan oo kale oo kan dulduleel buu leeyahay ma haysid miyaa mid aan dulduleel lahayn alwaaxa ku kabi karaa sidaas ii samee alloora bari subaxi u soo laabo marka maya haddaan rabaa aniga taas suurtagal maaha abay waxaad rabtaan dhiiba fiir abay ma wiilkaagaa dhintay maanta maya maxaa waaye degdegaan ku soo gala adiga bal maxaa kugu dhacay ii sheeg waxa jira si aan arrintaada wax oga qabto okay idagayso kooladan qaad mari meelaha uu ka dulduleelo sanduuqa oo dhan aadaad u mahadsan tahay si degdeg ah halkan oga bax si uu qofna kuu arkinba hooyo dhaqso hooyo nimankii wiilasha gowracayaa jooga dhaqso وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday nebiyullaahi muusa calayhi salaam hooyadii nuuji wiilkaaga yar ee muuse ah markii aad u baqdidna ku tuur hilka badda hana welwelin hana murugoonin waanu kuu soo celin doonaa waxaanan ka dhigaynaa rasuul ka mida rususha ilaahay
way tageen askartii. Mee walaalkay. hooyo mee walaalkay. waxa uu ku jiraa sanduuqa. hirka biyaha qaaday. ha warwarin, ilaahay ayaa inoo soo celinaya isagoo nabad qaba. sidee aayar soco oo mar webiga dhinaciisa oo isha ku hay. waayahay, ishaan ku haynayaa, laakiin isku day inaan cidi ku arag. waayahay, waa walaalkaa waxa sanduuqa ku jira. marna ishaadiyay ka jeedsan. markaad fursad heshidna ii soo sheeg. sanduuqii waxa uu sii socdaba wuxuu ugu dambayntii ku soo caariyey qasrigii fircoon isaga oo uu ku jiro nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo wiil yar ah. eega waa maxay waxaasu? bal keena halkan. fur. suga, anaa isku dayay inaan fure. allah, waa wiil yar oo qurux badan. alla, maanta maalintu fiicana. alla ku jecliyey wiilyow yari. waa reer bani israa'iil. waa reer bani israa'iil boqorkaygiyo. dila wiilkan yar. waa wiil yar oon dembi lahayn. waa reer bani israa'iil sidaad adiguba og tahay. haddii uu yahayna maynu ka dhigno mid dhashay sanadka cafiska. laakiin sanadkani sanadkii cafiska ma aha. waynu korinaynaa, waxaynu ka dhiganaynaa wiil. korinaynaa. wuxuuna inoo noqon doonaa mid indhaheennu ku doogsadaan. naag nuujise u raadiya. intaa inka badan ma sugi karo. waan u tegayaa, waanan u sheegayaa. laakiin hadday gartaan inuu wiilkaagii yahay way dilayaan. yaa allah, yaa rabbi. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. nabiyullaahi muuse calayhi salaam hooyadii qalbigeedii waxa uu noqday mid maran. waxaana aad uga murugoonaysa wiilkeedii yaraaye muuse ahaa. waxay ku sigatay inay jidadka u soo baxdo oo ay ku qayliso, waxaa iga maqan wiil. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qalbigeeda sugay oo ka dhigay qof mu'minada. qasriga meel u dhow tag oo soo dhegayso. waa intaasoo soo maqashaa war aynu ku faraxna dhaqso hooyo. boqoradaydii caanahayga ma doonayo. sidaasuu u diiday dumarka oo dhan. u yeedha gabadh kaloo nuujisa. qasriga ma joogto gabadh kaloo wax nuujin kartaa. fikrad baan hayaa. xambaara suuqa la soo mara oo soo raadsha gabadh nuujisa. xoogna u taxadara. aniga wuu i diiday. sidaasuu u diiday dumarka oo dhan. maxaynu yeelnaa? mid kaloo nuujisa ha la raadiyo. war mid kaloo wax nuujisaa ma jirtaa? war mid kaloo wax nuujisaa ma jirtaa?
anigu ma idin tusaa qof idinka caawin karaa oo nuujin kara kaalay gabar yahay miyaa taqaanaa wiilkan aniga maya ma taqaanid ma aqaan mana tusi kartaa naagta aad sheegaysaa wax nuujinaysa haa haddaba dhaqso وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون نبي الله موسى عليه السلام وحاو إلهي سبحانه وتعالى كإلالي إنو نوغو دمرك كليتو iyaga oo wareersan oo waxay sameeyaan garan la ayaa gabadhii yareed ee walaashiis waxay ku tiri ma idin tusaa qof wiilkan yar dhaqaalaynaya oo u samafalaya رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس هلا سوق لي قصرك gabadha ma aniga qasriga ku noolaanaya haa annaga nala joogaysa si aad wiilkayga u nuujisid anigu weligay qof uma jeclaan sida aan isaga u jeclaaday gurigayga kama soo tagi karo oo carruurteeda iga dayacmaysa qasrigan waxaad ka helaysaa wax alla waxaad doonaysid carruurteeda i tabaysa waxay doonayaan oo dhan baan u diraynaa aad ayay iigu baahan yihiin carruurtayda markaad firaaqa haysid ayaad u tegaysaa ma awoodo laakiin waxaan samayn karaa haddii aad ii ogolaato inaan wiilka gurigayga la aado gurigaaga haa gurigayga waxa uu ka heli doonaa khayr badan mana samayn karo taa wax ka gedisan waan ogolaaday laakiin ilaali wiilkayga gabadhan ha la siiyo wax alla waxay rabto waayahay boqoradaydii iina keen oo isoo booqa mar walba waayahay gabadhan ha la siiyo wax alla waxay rabto فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وحا إلهي سبحانه وتعالى أسوعلي نبي الله موسى عليه السلام هو يدي سيشهد أمرها حيثته وآني أمرقون إسلام مركانا يوغاتو إني بلانت إلهي تايمد حقه لكن تادت كبدن كيسو مقرنيان أو موغا سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان maanta waxa isoo booqanaya wiilkaygii waxa la arki doonaa sida dadkoo dhan uga wada helaan ay u jecel yihiin wiilkan aad baan u jecelahay waxaan kuu geynayaa aabbahaa si uu kuu karaameeyo wiilkan yar hala dilo waa cadow boqorkaygiiyow ma yaqaan waxa uu samaynayo u keen haddaba dhuxul yar oo dab ah iyo weel ay ku jiraan wax qurxoon
ma aragtay ma kala saari karo dabka iyo waxa kale weli waa wiil yar ilaahay baa mahad wiilkaygan yari waxa uu kaaga mahadnaqayaa waxa aad siisay شكرا لله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وحاقات النبي الله موسى عليه السلام فرعون إيدتكيسا إساقو النغندونا علئي والبهار فرعون إيه هامان إيه عيدا كيسوا وهي هايين كوقفي أو كردر وهي تري فرعون حاس كيسو ويل كان يروى راحة إشيدا إيتادا بهدلنا وها دعي كرتا إنو إنا أنفعو أو كدقانا ويله iyaguna xaqiiqda iyo arrimuhu siday ku dambayn doonaan maysan garanaynin سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت waxaa gudbay sanado badan waxaana uu nebiyullaahi muusa calayhi salaam ku koray qasriga fircoon isaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka ilaaliyey fircoon iyo qoomkiisaba dhibaatadooda iyo shartoodaba muuse meeyey ilaa saakita waa maqan yahay boqorkaygiiyo deg deg ha igu yimaado markuu soo noqdo waayahay هاي كان وموسى ويلك فرعون واوينادي waxaan maqlay fircoon inuu rabo mas'uul inuu ka dhigo wareer bani israa'iil asaga inay mar walba caawinaad weydiistaan ma ogtihiin intuu weynaadaba sidaas uu ahay waxaaba la sheegaa boqorka inuu aad u jecel yahay boqorkii jidcaduhu ku sii socdaa واري حابتنا waxaa iska leh boqorka maxaad u qaad weyd abba holku talo waay taas shaqadeed ma aha aniga reer bani israa'iil waxay adoon u yihiin boqorka duqa mid qorshaha ku dar adiga adoonku ma nihin laakiin wari anigu waxaan u duwaa boqorka roodhiga hol italama taas aday shaqada tahay markaas anigu kuma weydiisan inaad boqorka wax u dubtid okay wax yar ka hor hadda waxay dheesmi ilowday inaad xaabada qaadide mujada taas waxay cadeynaysaa inaan shaqada ku qabtaan rabtaa war ma amarkayga didaysa aday ku tala taas samee waxaad sameynayso qori aan ku qaadayo iska yar duqa قاعد حافظوا هذيك الوين قرعنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو نبي الله موسى عليه السلام وهو مقالة صوغلي وقت أيدت كيد المسجة كجران وهو مقالة دحيدة كل مي لبنين أو إسايست أو دقال لمية ومتكود وإهل كيسي يهي وأورير بني إسرائيل يهي
ka kalena uu cadowgiisa yahay waxaa kaalmo weydiistay kii ehelkiisa ahaa inuu uga hiiliyo kan cadowgiisa ah nebiyullaahi muuse calayhi salaam waxa uu ku dhiftay hal feer kii cadowgiisa ahaa isla markiiba wuu dhintay waxa uu nebiyullaahi muuse calayhi salaam yidhi kani waa shaydaanka camalkiisa isaguna waa mid baadiyeeya dadka baadiyeyn aad u adag waxaan maqlay in ninkii rootiga ii dubayey la dilay yaa dilay reer bani israa'iil baa dilay waa inaan ka aarsanaa boqorow ninkii dilay waa in halkan la keenaa laakiin weliba kuwii goobjoogga ka ahaa la keeno laakiin qof arkaya ma jiro meel kasta ka raadiya waxaan aan rabaa in si dhaqsaa loo helo ninkii dilay war ma aragtay ninkii dilay rootilihii boqorka askari waxa waaye anaga gurigaan isaga jirna maanta ilmaheena iyo xaasaskeena iskala joogno qoraxdaaba kulleed war adigana maya anba gurigaa joogay war adna maya qof aan arkaaba iska yar فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وهو نبي الله موسى عليه السلام kuwaa bariistay magaaladii isaga oo baqaya wuxuu markiiba la kulmay kii uu shalayta u hiilinayay oo ay ishaystaan mid kaleeta oo qoomka fircoon wuxuu ku yidhi nebiyullaahi muuse calayhi salaam kii qoomka reer bani israa'iil ee shalayta u hiilinayay war adigu mid rabshoola baa tahay oo ay dadka had iyo goor ishaystaan markii uu isku dayey inuu nebiyullaahi muuse calayhi salaam uu ka qabto midka qoomka fircoona ee ku gardaroonaya wuxuu yidhi midkuu shalayta u hiilinayay qoomka reer bani israa'iil ahaa war muusow ma waxaad doonaysaa inaad ii dishid sidaad shalayta u dishay naf adigu ma doonaysid inaad dadka wanaag u sameeyeysid ee waxaad doonaysaa inaad dadka isku kibrisid oo aad iska weynaysiisid oo muuse ma ogolaaday inuu isagu dilay haa wuxuu ka cabsanaya muuse wuxuuna u malaynaya inuu asagana dilayo muuse ii keena haye sidoo kale ninkii arkayayna hala ii keeno وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين waxaa magaalada dhinaceeda shishe ka yimi nin ordaya waxaana uu ku yidhi nebiyullaahi muuse calayhi salaam muusow qoomkii way kuu tashteen waxaanay doonayaan inay ku dilaan ee meesha isaga arar markaas ayuu nebiyullaahi muuse calayhi salaam ka baxsaday meeshii isaga oo geesa hadeeya oo aad u baqaya wuxuuna ilaahay subxaana wa tacaala ka baryey rabbiyow iga badbaadi qoomka daalimiinta ah 8 maalmood baad raadinayseen muuse welina maydin helin miya haa boqorow laakiin qofna ma yaqaana meeshuu ku dhuntay waxaa dhici karta inuu reer bani israa'iil ku dhex dhuumanayo guryahoo dhan waan ka baarnay markaa waxaa dhici karta inuu u cararay saxaraha askarta meel walbay ka raadiyeen wayna waayeen ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
waxa uu u jeestay nebiyullaahi muusa calayhi salaam inuu aadayo dhinaca magaalada madyan waxaana uu yidhi waxa aan rajaynayaa inuu ilaahay igu hanuuniyo waddada toosan ee saxda ah markii uu soo galay magaalada madyan nebiyullaahi muusa calayhi salaam wuxuu ku soo hormaray ceelka magaalada madyan halkaas oo ay dad xoolo leeyihiin xoolahooda ka waraabsanayeen wuxuu meeshii kula kulmay laba gabdhood oo meesha taagan oo aan iyagu xoolahooda waraabsanaynin wuxuuna weydiiyey sababta ay u taagan yihiin waxay yidhaahdeen aabbaheen waa nin weyn oo aan xoolaha noo waraabin karin anaguna ma doonayno inaan raggaan dhex galno waxaan sugaynaa haddaba intay ka dhammaysanayaan inay xoolahooda waraabsadaan iriga gadaal uga naqa meesha dee walaal wakhti horaanu nimid shuqulku ma lihi imika waa markayaga iyo markaagii maa yaaya wale naaga ma ihidiin nimanku intay ka dhammaysayaan suga maalin walba miyaanu ku sugnaa intaad dhammaysanayso waa og tihiina suga ewelba waa sugi jirteen laakiin maanta wakhti horaanu nimid hadda he ununkaa nimida gadaal u noqda adhiga iyagaanu waraabsanaynaa marka hore dan iyo muraad midna kama lihin taas hool noo taalla ma ahane erigiina maha ka leexsha layla inaga keen walaal xaggaan iskaga sugnay sugi kari mayno waayo aabbaynu ka habsaamaynaa xilli horeynu nimid innagu maxaynu yeelnaa haddaba maanta hooyo degdeg baa u soo noqoteen waxaana caawiyey nin oo adhiga noo waraabiyey oo muxuu ahaa ninku waxa uu u egyahay nin meesha ku cusub muxuu aabbihiin soo yidhi waxa uu yidhi waa inaan u mahadnaqnaa waxaa dhici karta in uu weli meeshii joogo weli ceelkii ayuu dul fadhiyaa haddaba gabadhaydii ay dhaqso oo aabbihiin waxa uu rabo samee waa hagaag waan u tegayaa oo waan u yeedhayaa فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين nebiyullaahi muusa calayhi salaam isagoo iska fadhiya ceelka agtiisii ayaa waxaa u yimi labadii gabdhood midood iyadoo aad iyo aad u xishoonaysa waxayna ku tidhi waxaa kuu yeeraya aabbahay si uu kaaga abaalgudo ama ajar kaaga siiyo waraabintii aad noo waraabisay ariga nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu u yimi gabdhaha aabbahood oo uu uga sheekeeyey wixii soo maray ee isaga iyo fircoon iyo qoomkiisa soo kala dhex maray wuxuu ku yidhi gabdhaha aabbahood nebiyullaahi muusa calayhi salaam waxba ha ka welwelin waad ka badbaaday qoomkaas daalimiinta ahe سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة aabaheen waxa uu yidhi waa inaan dibadda cunto ku siinaa ninka martida ah ma dibadda ayuu seexanayaa waxa fiicnaan lahayd in uu ninkani aabbo u shaqeeyo waa nin wanaagsan oo awoodna leh aaminna ah sideed ku ogaatay inuu aamin yahay waxa uu diiday markii aanu soo soconnay in aanu horgalno sideed ku ogaatay in uu awood leeyahay waxa uu riixay nimankii ceelka joogay oo dhan giddigoodna wuu naga horwaraabiyey taasi waa akhlaaqda dadka wan wanaagsani leeyihiin waxaanan u sheegayaa aabbihiin
قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. waxa uu ninkii odaga ahaa ee labada gabdhood dhalay ku yiri nabiyullaahi muusa calayhi salaam, waxaan doonayaa inaan labadayda gabdhood midood kuu guuriyo, shuruuduna waxay noqonaysaa inaad ii shaqaysid 8 sano. haddii aad 10 sano ka dhigtidna waa midaad adigu iska leedahay ee ma aha waxaan kugu khasbayo. waxa aan rajaynayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhaahdo inaadan wax dhibaato aygala kulmin. muuse calayhi salaam ku yidhi ninkii odayga ahaa, taasi waa ballan aniyo adiga inaga dhexaysa. labada waqti 8 sano ama 10 sano tii aan dhammeeyano midkoodna dhib iguma hayso. waxaynu ku hadlaynana waxa markhaati inoogaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك. muuse waxa uu aabba weydiistay in uu soo booqdo reerkoodii Masar. haa, waan ogahay. waxa dhammaaday 10kii sano ee heshiisku ahaa. waa nin wanaagsan. sidee hooyo? markii uu 8 sano inala joogay ayuu aabbaha ku yidhi deynkaagii waan guday, laakiin waxaan dhammaystirayaa 10 sano. laakiin hooyo, hee Safuura, arigaanu qaar rabnaa si aan ugu noolaano. haa Safuuroy, waxa uu aabbaha u ballan qaaday ariga sanadkan dhashay oo dhan. waad mahadsantihiin adiga iyo aabbaba. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. markii ay muddadii 10 sano ahayd ee lagu ballamay ay u dhammaatay nabiyullaahi muusa calayhi salaam, ayuu wuxuu kaxaysay reerkiisii wuxuuna la aaday dhinaca Masar. iyaga oo wadada ku sii jira ayuu waxa uu meesha door la yiraahdo agteeda ku arkay dab. markaas ayuu wuxuu reerkiisa ku sii yiri, halkan igu sii suga, waxaan soo eegayaa dabkaasi. waxaa dhici karta inaan khabar ama war idinkaga soo helo ama aan idinkaga soo xiro dhuxula dab ah. سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت، سبحان الملك القدوس
العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. markii uu soo gaaray nabiyullaahi muusa calayhi salaam meeshii uu dabku ka baxayay ayaa waxaa loogu yeedhay magaciisii markaas ayaa waxaa la yidhi muusow anigu waxaan ahay rabbiga bixi kabahaaga waxaad ku dhex jirtaa togii daahirka ahaa ee duwa aniga ayaa ku doortaye maqal waxa lagu waxyoonayo waxaan ahay anigu allah mana jiro ilaah kale oo la caabudaa markaa waa inaad caabudaa aadna xuskayga mar walba aad u haysaa. سبحان الملك القدوس رب العزة والملك. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam muusow maxaa ku jira gacantaada midig waxa uu nebiyullaahi muusa calayhi salaam yidhi waa ushaydii waan cuskadaa arigaygana waxbaan ugu soo lulaa howlo kaleeto oo ay ii qabataana way jirtaa waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam tuur ushaada muusow nebiyullaahi muusa calayhi salaam ushiisii ayuu tuuray isla markiiba waxay ushiisu beddeshay mas aad u weyn oo ordaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam soo qaada ushaada hana baqin waxaanu ku soo celin doonaa sideedii hore waxaad gelisaa gacantaada garabkaaga hoostiisa waxay soo bixi iyadoo ifaysa oo dhalaalaysa wax dhibaata ahna aan lahayn taasina waa aayad kale waxaana sidaa u yeelnay si aan kuu tusno aayadahayaga waaweyn. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله
يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam waxaad tegaysaan adiga iyo walaalka idinka oo aayadahayga wata hana ka daalina xuskayga oo mar walba haya waxaad aadaysaan fircoon isagu waa mid aad u xadgudbaya waxaadna ku odhanaysaan hadal dabicsan waxaa dhici karta inuu waantoobo ama uu cabsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqo. waxay nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii yidhaahdeen waxaanu ka baqsannahay inuu nagu degdego inuuna ciqaabo ama uu nagu xadgudbo. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam waxaad tegaysaan adiga iyo walaalka idinka oo aayadahayga wata hana ka daalina xuskayga oo mar walba haya waxaad aadaysaan fircoon isagu waa mid aad u xadgudbaya waxaadna ku odhanaysaan hadal dabicsan waxaa dhici karta inuu waantoobo ama uu cabsado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka baqo. waxay nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkii yidhaahdeen waxaanu ka baqsannahay inuu nagu degdego